isaaka waxaan joognaa hameenba meel bay ku soo hoyatay maanta waxaan joognaa magaaladii Garacad controlkeedii ilaahay baa mahad iska leh waxa meeshan iskugu yimid maamulkii deegaanka Garacad qurba joogtii madax ka socota madaxdii hay'adda neesho shaqada waday asaasi hore wadada ninkii waqtiga badan soo galiyo Cabdisiciid saakay waxaan rabnaa halkaan u nimid shaqadii kormeerkeedii oo aan soo kormeeray shaqadu siday u socoto iyo shaaliyada Australia oo lacag kaga qayb qaadanaysa wadadan oo ayaan rabnaa inaan ka gudoono ilaahay baa mahad iska leh marka waxaan jeclahay intaanaan warbixintayada gadaal aadin inaan ku soo wareejiyo Iimaan Agay oo ah gudoomiyaha shaaliyada oo halka nagala jooga oo wareejinaya dhaqaalahaas inaan dhaqaalaha kala wareegno marka ka bacdigeedna mahad celintii iyo meesha shaqadu marayso warbixin aan ka bixino ku soo dhaw Iimaan bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada Garacad gudoomiyihii wadada wadaagsin iyo dekada injineerkii wadada waday injineer Jimcaale iyo Cabdisaal Suuryaani iyo nabadoonada iyo bahda saxaafadda dhamaanteed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay waxaanu joognaa Garacad waxaanu ka soo bilownay Gaalkacyo in yar oo kiiloomitir ah kaliya hadda inoo dhiman waxa lagu sameeyay iyo sida loo soo maray iyo taariikhdeeda hadda waxa ka warbixin doona dadkii gacanta ku hayay xogaalka ahaa oo ilaa iyo 2000 iyo ama 2000 iyo labadii maaragtay gacanta ku hayay runtii kamaanaan maqnayn ilaa 2002 dadkii ugu horeeyay lacagaha u soo ururiyay baanu ku jirnay jaaliyada Australia anigoo magaceeda ku hadlaya ilaa iyo haddana waanu wadnay muddo dhow ka hor waxaan rabaa inaan in yar oo brief idinka laftarkiina jaaliyada reer Australia waxay ahaayeen jaaliyadii ugu badnayd ee lacagta ugu badan ku bixisay wadada wadaagsin muddada anigu aan gudoomiyaha guddiga u ahaa ee wadada wadaagsinna taariikhiyan xataa Mareykanka oo ummadda noogu badan ay naga jirto inaga ka lacag badnay Australia waxaan rabaa inaan idin sheego dad aad u yar baa jooga laakiin way ka activesan yihiin meelo badan oo adduunka dadka iyagu ay joogo way aad iyo aad uga badan yihiin laakiin se ka wax bixin bay ka wax bixin badnaayeen jaaliyada Australia maantay waxaynu halkan u taaganahay inaanu ku wareejino gudoomiyihii wadada iyo injineerkii waday iyo dhammaan odayaasha baahda saxaafadduna ay marxaati ka noqon doonto anigoo wakiil ka ah jaaliyada reer Australia oo aad iyo aad ugu mahad celinaya runtii dadaalka faraha badan leh mar walba ay la garab taagan yihiin dhulkooda gaar ahaan wadada wadaagsin runtii waxaan rabaa inta aanan ka bixinin inaan mar walba idin xasuusiyo iyaga laftigoodu waa idin jecel yihiin waxaan aaminsanahay sida idinku reena u jeceshihiin warar badan oo anigu iyaga aan idinkaga wado waa isku dambayn doonaayo anaa si fiican idinkaga warrami doona haddana waxaan rabaa haddii ilaahay idmo lacagtaas oo ah $5,000 oo 1 kiiloomitir u dhigmata runtii maanta si baan maaragtay u gacan yarahay intaa waa ka gacan weynaan jiray laakiin waxaan rabaa mar walba bay joogtaaye maantay waxaan wareejinayaa $5,000 oo aan wakiil uga ahay jaaliyada reer Australia gaar ahaan intooda badan reer Melbourne bay ku nool yihiin gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad buu mahadsan yahay Iimaan oo ka wakiil ah jaaliyada Australia lacagta ay noo soo lagu wareejiyeen waa kala wareegnay ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaadato dhismaha qaybteeda markaan wax yar warbixin gadaal ugu laabto wadadan hadda dufcadii hadda u dambeysay oo ay ka bilaabatay meeshaan la yahay Jaleelaalay ilaa meeshii hore ay ka soo kacday 29 kiiloomitir oo 6 kiiloomitir oo mareer ka shishaysa iyo 33 ka sokeeya 39 kiiloomitir ayaa shaqadan dama ka bilaabatay 39 kaas 18 kiiloomitir oo kamid ah waxa lacagteedii ku yaboohday oo ku deeqday jaaliyada reer Minnesota Mareykanka
haatana shaqada socota waxay ku socotaa lacagtoodii 6 kiiloomitir ugu horeysay hadda waa la dhigay intii dambeetana waa socotaa shaqadeedii 12 kiiloomitir oo u dhimana ayagay ku soconaysaa waxa soo haraya 22 kiiloomitir dhulka hadda ilaa hadda aan gacanta la saarin oo Garacad ilaa iyo meesha la yiraahdo xirma kawte 22 ka haray koodii maanta waxa wareejiyay jaaliyada reer Australia sidaasay waxay ugu noqonaysaa 20 kiiloomitir u haraysaa 20 kiiloomitir waxaan rajaynaynaa jaaliyada iyadana waxa jidha reer Canada Edmonton ayagana waqti dhow baa waxa naga soo gaari doona lacag ilaahay idankiisa ayagana intay u noqdaan baan u calaamadin doonaa meediana uga sheegi doonaa qodobka aan rabo inaan gudoomiyaha deegaanka Garacad nabadoonnada jaaliyada dibadda waxa weeye dhammaan ganacsatada odayaashii hore aan rabo inaan u sheegno oo aan go'aankan isla qaadanay aniga iyo injineer Jimcaale iyo ragga shaqada wada wuxuu yahay jaaliyad waliba sidaad saaka u soo aragteen inaanu uga taagno 2 tabeele kiiloomitir qolada Australia kiiloomitirkoodan uga taagaynaa reer Denmark waa uga taagnay khayr Allah siiyo 10 kiiloomitir ayay ku deeqeen 8 lacagtiisa ay bixiyeen oo aan ka salimnay 2 kiiloomitir hadda ay soo aruurinayaan reer Edmonton sidaas oo kale ayaga waxa leeyahay reer Minnesota 19 kiiloomitir markay dhamaato ayaan labadii tabeele waa yaaliin labada geesood uga taagaynaa reer Australia sidoo kale reer Edmonton sidoo kale cid kasta waraaba qolo kasta deegaanka Jariiba ayaguna qayb bay ka qaateen oo 10 kiiloomitir bay calaamadsadeen deegaanka reer mataqaana gaalkacyo oo isimadii ay hogaaminayaan iyo nabadoonnadii lacag bay bixiyeen lacagtay bixiyeen waxaan malanayaa 90,000 bay ahayd waa lacagta ilaa iyo shaqadeeda lagu soo waday ilaa buubi laga soo bilaabay cid waliba sidaas aan rabnaa inaan ugu sameeyno xisaab celin hufan oo shilan walbo la bixiyay meeshuu galay kii shidaal galay kii dayactir galay kii mushaar shaqaale galay kii biyo galay iyo kii galayba inaan xisaab xuran hufan u soo celino oo public ah oo meel maxfala lagu qabto waxaan ugu baaqaynaa meel kasta oo la joogo jaaliyada inay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inay ka qayb qaataan sadaqada jaariyada oo soconaysa oo qof waliba kii 1 mitir bixiya magaciisana waa sheegaynaa allana ugu ducaynaynaa waxaan si khaas ah ugu mahad celinayaa madaxda dawladda Puntland oo ay nagala joogaan injineerada ka socda hay'adda neesha oo shaqadan waxa weeye fududeeyay oo keenay 5,000 oo maanta iimaan dhiibay inay 1 kiiloomitir bixiso ku dhisanto waxay ahaan jirtay 22,000 halkii kiiloomitir baa lagu qaadan jiray markay bareefadka tahay waxa fududeeyay gaadiidkii oo aan kira ahayn shaqaalihii oo si tabarucaad u shaqeynayeen raashin kaliya aan siinayno iyo dayactirkii qalabka baa fududeeyay shaqadaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye madaxweyne Cabdullaahi Siciid Dani hadda baanu Siciid Cabdullaahi Dani kulan baanu hadda la soo qaadanay wuxuu naga ballan qaaday shaqadaasi inta ay qalabkaasi oo shaqada wado inuu shaqo qaran tahay uu kuna garab istaagnanahay aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda hay'adda kuwa garoowa jooga kuwa halkan joogaba oo ducaynayna waxaan leenahay madaxiina ha jiro annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa qalabkaas dayactirkiisa iyo waxa weeye asagoo oo sidoo noogu yimid ka wanaagsan inuusan waxa wadadaasi uu kana shaqeeyo dayactirkiisa iyo hagaajintiisana aanu awood saarno intaas idinkana wadinka ballan qaadaynaa aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa nabadoonnada ganacsatada odayaasha jaaliyada waxa weeye Cabdisiciid oo raggii halgamaayo wadadan bilaabay oo ayadoo isku tashigii koowaad ninkii bilaabay uu ka ahaa oo nala jooga weydin mahad celinaynaa waxaan idin leenahay marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan maamulka beesha nabadoonnada maamulka wadaagsin odayaasha nabadoonnada iyo dhalinyarada iyo saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad baan waxaan maanta ugu faraxsanahay anigu hadda muddo idinka maqnaa oo aan caafimaad baan idinkaga maqnaa laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ilaahay baa mahad iska leh ilaaha weyn oo inoo ahaysiiyey inaan halkaan maanta isugu nimaanno hawshaanna halkaan aynoo marayso waxaan gaar ahaan mar labaad u mahad celinayaa dadka deegaanka reer Garcad ama degmada Jariiban
waxa weeye hawshaan hadda maanta socota ama ha noqoto wadada ama ha noqoto aeroboorka ama ha noqoto dekedda waxaanu ku bilownay isku tashi baynu ka bilownay 94 iyadoo Soomaaliya oo dhan dawlad la'aan iyo burbur ka jiro ayaa la bilaabay dadkii asalka u ahaana runtii garacad bay lacagta ugu horeysay oo la qaaday oo isku tashiga loo qaaday nimankii dhalinyarada ahaa oo waxyaabaha ka shaqeyn jiro badda ka shaqeyn jiraan lacagta ugu horeysay ka qaadnay oo shaqada lagu bilaabay maalintaas waxay dadku ka hadlayeen war markaan ka hadlayno dawlad miyaynu nahay airport iyo jidad iyo markaan ka hadlayno ma dawlad baa laga hadlayay waxa weeye dadkii marka hawshaas ku dhiiriday oo maanta inay halkaas soo gaadho sabay waa dadka halkan taagan ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay waxoodan u barakeeyo maskaxdooda iyo aragtidii noocaas ahaydna ilaahay inuu u siyaadiyo isku tashiga dadku waxay yiraahdaan in Puntland la isku tashaday waxa isku tashiga dadkii ugu horeeyay oo bilaabay baana annaga dadka baray dad badan baa ka faa'iideystay oo Puntland ama Soomaaliya oo isku tashiga markay arkeen ayaguna ku baraarugay oo isku tashaday wax qabsaday waa dhici karta in la ka dheereeyay laakiin fagriga annaga lahayn oo keenay taa horta waxa weeye inaad idinku aad u ahaydeen asal horta waa inaad ogaataan waan inaad ilaashataan kuna adkaysataan inaad isku tashigii iyo midnimadii iyo wadajirkii inaad sidii u xoojisaaniin bil aadamka ilaahay abuuray qof walba isaga dhulka khaliif looga dhigay ayaga dadku wax qabsada waxa markay wax qabsadaanna waa noloshoodii iyo mustaqbalkoodii waliba dadka dhalinyarada oo naga odayaashayada hadda waa sii soconaa loodkii labaad baan ku jirnaa odayaashii naga horreeyay way bixeen waa dadka mustaqbalka sugaya ayaga laga rabaa inay ilaashadaan waxaan oo ay waqti geliyaaniin inaga waxa way dadkaas aan mudnaanta ugu weyn dadkaas ay u leedahay waxa maanta laga shaqeynayo oo la qabanayo taa horta intaasaan uga gudbayaa midda kale qolooyinka jaaliyadaha oo iyaguna dalka u dhashay oo nin walba gurigiisa ku soo xisaabtamayo oo dhaqaalaha soo diraya waxay dhaqaalaha u soo dirayaan waa dhulkoodii bay ku xisaabtamayaan inay halkan ku soo noqdaan ilmahooda ku soo celiyaan wadankooda yimaadaan bay doonayaan noloshii ay u soo laaban lahaayeen iyo servicekii wixii loo baahnaa in laga helana way rabaan aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa oo u dambeysay jaaliyadda Australia oo hadda uu nagala joogo imaan iyo kuwa ka horeeyay iyo kuwa kale soo socdaba waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inay ka sii badiyaan inta waxa weeye ajar bay ka helayaan oo waxooda ilaahay u barakeeyaan ugu ducaynaynaa ilaahay xaqiisana way ka helayaan oo waa sadaqa jaariya marna wadankoodii bay dhisanayaan marna dadkoodii way wax la qaybsanayaan ayagu hadda meel xogaa iska joog dhibaatada ay qabaaniin bay kala qayb galayaan waxa weeye dadkaasna waan u mahad celinaynaa waxaanan ka codsanaynaa inay sii laabaan oo qolo waliba intay samaysay in labadeed leeg ay ku sii fakadho inay qabato inay daalin waxa weeye ilaa iyo xilliga aan sheegay ilaa maanta shaqadan way soo socotay maalinba meel bay soo maraysay lama daalin maantana waxaynu joognaa in dadka indhihiisa oo dhan noo soo joogaan oo laga hadlaayo garacad waxa weeye waa arinta dekedda waa arinta wadada waa arrimahaas waxa weeye inaga waxa weeye meeshaynu joognaa ma dareensanin laakiin haddaad bannaanka joogtaan baa dareemi lahaydeen ninbasi ha u hadlayo laakiin adduunka hadda iyada haysata arrintaas haysta in laga hadlo waxa weeye miisaanka iyo qiimaha ay leedahayna weeye rag baa marka waxaas waxa weeye waxaynu ku gaarnay isku xuraan iyo midnimo iyo dad waxoodii huray oo dalkoodii dadkooda u huray baynu ku gaarnay ayada marka inaynu adkaysanaa loo baahan yahay midnimadaas wada jirkaas ammaanka dhaqaalaha wax walba inagoo wada jirno oo midaysan inaynu maaragtay waxa loo baahan yahay inaynu sidaa u wadno haddii ilaahay idmo waanu gaaraynaa meeshaynu u soconno hadafkaynu u soconno waa gaaraynaa waxa weeye haddaynu ilaahayna tala saaranno innaguna aynu midnimadeenna iyo wada jirkeenna iyo iskaashigeenna aynu adkayno meel kastoo aynu soconno waynu gaaraynaa waxaad idin tusaya dee intaynu gaarray haddaynu iska sii badinana waynu sii meel ka sarraysaynu sii gaaraynaa marka waxa weeye habayo hadalku ila fudurkine aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa qolooyinka jaaliyadahana waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay waxooda ha u barakeeyo carruurta baarre allah uga dhigo waddankooda iyagoo nabad allah ku soo celiyo waxa weeye annaguna dhammaanteenna waxa weeye ilaahay waxaan weydiisanaa dambi dhaaf iyo riyadeenna iyo hamigeenna ilaahay inuu nagu guuleeyo baan ilaahay ka baryaynaa waanu guulaysanaynaa haddaynu midnimadeenna adkaysanno iyo wada jirkeenna iyo inaynu waxeenna u tashanno inagoo mida waa guulaysanaynaa allahayna guuleeyo aad iyo aad baan idinku celinayaa dhammaantiin waa salaamayaa dadka meeshaan isugu yimid magac kasta uu leeyahay iyo darajo kasta uu leeyahay waa salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinaynaa allaha weyn ee na abuurtay
waxaan u mahadcelinaynaa waddada wadaagsin dadka ka qayb qaatay hadday dawlad yihiin iyo hadday shacab yihiin iyo hadday hay-ad yihiin ilaah baa mahadle waa u mahadcelinaynaa haddaan nahay odayaasha deegaanka degmada Jiriiban waxaan leenahay waad mahadsantihiin reer Australia reer Mareykan reer Canada reer Denmark cid kasta oo lacagteeda ku bixisay qarashkeeda iyo maskaxdeeda waa u mahadcelinaynaa waxaan intaa ku darayaa waxa la nin weyn wuxuu sheegana waa dardaaran wuxuu cunaana waa show waxaan dadka reer Puntland ugu baaqayaa waxa fududeeyay in maantay waddadu laga soo bilaabay gaalkacyo ay garaac soo gaarto dawladda Puntland weeye iyo maamulka haddaan maamul jirin waxba lama gaareen maamul hadduu soo jirin wax lama gaareen qalabka dawladda keentay dalkeeday u keentay qof laga leeyahay ma jiro waxa fududeeyay arinta waa dawladda waxa laga yaabaa inay jiraan dad dawladda u arka inaysan waxba qaban war ogaada dadka waxaan kula dardaarmayaa maadaama aan oday ahay dawladdiina ilaashada dad reer Puntland maantay in qalabkii dawladdu halka marayo oo meel kasto Puntland kamida horumar ka socdo waad u jeedaanin yaan la idin khaldin arra kale iyo dad kale oo aan dan idin hayn hawaan qaltaaginina horumarka iyo dawladdiina ka faa'iideystaan leenahay waxaan leenahay dawladdiina ka faa'iideysta la shaqeeya amniga suga wax kasta oo horumar ah oo dalkiina u istaaga been yaan la idin sheegay haddii wax kasta aan isku keenno haddaan Puntland jirin maanta halkan gaadiidkan ma yimaadeen ilaahay baa fududeeyay amarkiisa laakiin hadda dawladnimo lagu helay taasna intaasaan leeyahay deegaanka haddaan nahay annagu horena waa uga qayb qaadan jirnay waddada dhismaheeda ama maskaxdeeda aan ku bixin ama maalkayaga aan ku bixinay haatan sidii iyo si ka daran baan uga qayb qaadan doonaa haddii alla idmo wixii nagu aadan oo anaga awoodayada oo aan bixin karno waa la garab taaganahay waan la sheegayne hay'adaha jaaliyadaha 5,000 iyo 20 bixinaya kama wax yarin hadda wax iyagu waa wax iska socdo niman la dhex joogaanayo hawsheeda waan idin sheegayno waxaan isleenahay hadda wax sheegtaan ama dadku ka gaagaxo yiraahdo ayaga dhisan kara kama hawl yarin dhammaan waxaan salaamayaa madaxdan soo booqatay magac kasta ay yihiin salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacaygu waa Ali Jamaal Cismaan Nuur waa madaxa shaqadan wada waxaan ka tirsanahay hay'adda wadooyinka Puntland qalabkan dawladda ku deeqday hawshu waa isku tashi ma sha Allah wax wanaagsan bay hadda ka muuqdo aan qabanay maalintii la soo booqdana dhiirigelin baan ka helaynaa in loo yimaado inaan shaqadiisii mar la siis laba jibaaro siis saddex jibaaro aad bay waxay noogu noqonaysaa niyadeeda kor u qaadaysaa anagu waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo annaga iyo shaqaalaha anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha hay'adda wadooyinka halkan jooga waxaan ballan qaadaynaa inta la helayo shidaalka iyo olyada qalabka meesha jooga inaan shaqada wadno baan ballan qaadaynaa ciidii nagu soo taakuleysana aad baan ugu mahadcelinaynaa waxayna nagu dhiirigelinaysaa ciidii wax la baxdaahi inaan shaqada sii laba jibaaro intaasaan leeyahay waana u jeedaan meesha wax marayaan waa ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadaagsin warsamo Axmed Shire Liibaan gudoomiyaha jaaliyadda Australia Iimaan Cagay injineerka ka socda dawladda Puntland hay'adda neesho Jimcaale Cismaan Nuur nabadoonnada odayaasha dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan waxaan u mahadcelinayaa Allah ina abuurtay oo maanta halkan isugu keenay goob ay ka socoto shaqadii waddada wadaagsin oo si qiimo leh u socota waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa marka labaad u mahadcelinayaa dawladda Puntland oo la xaqiijiyay lana cadeeyay haddii aysan jirin inaan waddadaani noo suura gasheen aysan noo fududaateen inaan maartay ay maanta halkaan marayso sababtoo ah qalab iyo shaqaale iyo injineero waxa weeye aan annaga maartay inay wax na taraan maahane aan wax maartay iyagu ay shakhsi ahaan ay naga rabaan aysan jirin oo tabarucaad ku shaqaynaya qalab shidaalka inaan ku shubanno iyo wixii ka xumaada maahane aan kira nagu ahayn shaqaale raashinkooda iyo adu wax la mid maahane aan naga sugayn mushaar waxaasoo dhan dawladda adabidha
marka koowaad marka ayada mahadcelinta iskale marka labaad waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayr miisaanka xasanaadka aakhira Allah idin kugu daro waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa hadda oo saacadan aan joogno oo aan ka guddoonay lacag jaaliyadda Australia oo nagala joogo gudoomiyihii Iimaan lacag $5,000 hadda aan ka guddoonay awalla wax badan oo horumar ah deegaanka ka qabtay waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin walina hawshu waxa weeye farkama qodna faan noole sida la sheegay wadadu waxay maraysaa hadda fayskii afraad miya amsa shanaad baa waxa laga bilaabay garaacad shay baan loo sii wadaa 20 kilomitir baa hadda aan wax loo hayaa jirin dadka khayrka jecel dadka horumarka jecel dadka wanaagga jecel dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hawshii aad soo wadeen oo aad soo bilowdeen wali ma ay dhammaan wali waa qabiyo hal la qabiyo tiro wayna sugaysaa wali annagu ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan mar walba cod iyo calafba waa garab taagannahay diyaar baan u nahay saacad walba ninka la yiraahdo engineer Jimcaale iyo teamkiisa si gaaran ayaga u mahadcelinayaa ayaga oo aan ognahay baahiyaha iyo duruufaha ay ku sugan yihiin aan la soconno bay haddana waxay ku talagaleen wadadaasi ilaa ay in sidii laga rabay ay noqoto in aysan meel kala fiirin waxaan leenahay ayagana abaalkiina ma gudi karo ilaahay baa abaalkiina gudi kara ilaahay dambigiina ha dhaafo dulqaadka iyo xilkasnimada iyo maartay shaqo wanaagga aad muujiseen waa mid ilaahay idinka abaal marinayo waxaan leeyahay horay u sii socda waa idin garab taagannahay cod iyo calafba waa idinla garab taagannahay intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh